بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسن داوديال halkan waa telefishanka kara marna waxaan ahay Cabdijaliil Cusmaan kuna soo dhawaada war wixii dalkayda faha caalamka inaga soo gaaray oo nagu barateen xilliyadan oo kalena hawada idin soo marin qodobada ugu waaweyn baahinteena wararka fiidnimo waxay kala yihiin xukuumadda deegaanka Soomaalida ayaa sii wada xariga caburinta iyo cagajugleynta ay ku hayso siyaasiyiinta iyo shacabka ay u aragtay in ay ka aragti duwan yihiin xilli xiisada siyaasadeed oo cakiran ay wali deegaanka Soomaalida ka taagan yihiin madaxweyne Mustafa Maxamed Umar ayaa toddobaad gudihiisa isla dhacay saddex gantaal oo siyaasadeed kuwaasi oo ay adag tahay in uu si degdeg ah ugu bogsado warbixin gaar ah ayaanu idin kaga haynaa taliyaha guud ee ciidamada Liverpooliska ee deegaanka Amxaarada ayaa xilka laga qaaday waxaana soo baxay warar iskhilaafsan oo ku saabsan sababta keentay in waqti xaadirkan xilka laga qaada taliyuhu iyo faahfaahin ayaan idin kaga haynaa caalamkana qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena fiidnimo waxa kamid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa Jimcaha maanta u ballansan in uu la kulmo hogaamiyaasha dalalka ku jira gaashaanbuurta NATO isla markaana uu kala hadlo xiisada ka jirta Ukraine aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Joe Biden uu ku wargelin doono xubnaha gaashaanbuurta NATO dadaalada aqalka cad ee ku aadan in xal diblomaasiyadeed lagu dhameeyo xiisadaha ka dhex aloosan xukuumadaha Kiev iyo Moscow. Because they have not moved any of their troops out. They've moved more troops in. My sense this will happen within the next several days. intaasi akhyaartaanu jecelnahay waa qaar kamid ah qodobada ugu waaweyn baahinteena wararka fiidnimo qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan oo Soomaalida iyo caalamka la xiriira oo aan goor dhow idin amba qaada hadii uu eebarhali ka noqdo diyaar garooba soonad wanaagsan daawadayaal warkii oo dhan warkeena habeenimana waxa uu diyaar aniga Cabdijaliil Cusmaan samo aan ku bilowna xukuumadda deegaanka Soomaalida ayaa sii wada xariga caburinta iyo cagajugleynta ay ku hayso siyaasiyiinta iyo shacabka ay u aragto in ay ka aragti duwan yihiin waxaana shiray ilaa iyo xalay xabsiyada loo taxaabay shacab tiro badan oo ay weheliyaan siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay deegaanka Soomaalida xalifiidka ay ciidamada Liverpooliska weerar ku qaadeen dhowr guri oo ku yaala magaalada Jigjiga oo ay deganaayeen siyaasiyiinta garabka sicitaanka ee xisbiga barwaaqo iyo rag kale oo ganacsato ah oo fadhigoodii yahay magaalada Jigjiga wasiirada hore ee warfaafinta deegaanka Soomaalida Xabiib Xaaji iyo Cabdullaahi Maxamed Mawluud Cabdullaahi Gisle Cabdulqaadir Jahaad oo ahaa taliyihii hore ee xafiiska warfaafinta ayaa laga soo qabtay guryahooda waxaana sidoo kale la xiray rag ganacsato ah oo aan siyaasadda hore ugu jirin inkasta oo markii dambe la sii daayay waxa kale oo shiray la xiray odayaal uu ku jira Cabdi Yunis iyo ganacsade Bashiir Maxamed Jaamac ciidamada Liverpooliska ee deegaanka Soomaalida ayaa sidoo kale weeraray guryaha siyaasiyiin kale oo ka tirsan garabka sicitaanka ee xisbiga barwaaqo laantiisa deegaanka Soomaalida waxayna sameeyeen baaritaano inkastoo ay waayeen shakhsiyaadkii ay markaasi ku raad joogeen
maalintii arbacada ay ciidamada Liverpooliska magaalada Jigjiga ku xireen in ka badan 40 dhalinyaro ah oo ay ugu dhaceen hotel Sahal oo la sheegay in xukuumaddu ay cadaadis badan ku haysay ganacsatada iska leh oo ay si gaar ah u bartilmaameedsanaysay. haddaba xaaladdan iyo waxa ay ka dhigan tahay waxaanu wax ka weydiinay Siraaja Aadan Xasan oo kamid ah falanqeeyaasha deegaanka Soomaalida isla markaana kamid ah siyaasiyiinta arrintan si dhow la socday. bal Siraaja habeen wanaagsan haddii aadna maqasha ugu horeyntii maxay ka dhigan tahay xiisadan cusub ee toddobaadkii saddexaad guda gashay deegaanka Soomaalida xukuumadduse maxay waqti xaadirkan u bartilmaameedsan haysaa siyaasiyiinta deegaanka Soomaalida iyo ganacsatada xaaladan ay abuuri hayso ujeedadu maxay tahay walaal aad baad maasan tahay guud ahaan waxay jirtaa xaalad amni darro ay dawladdu wado oo xagga shacabka ka soconin su'aashaada haddii aan ka jawaabo ujeedada dawladdu maxay tahay afar qodob bay noqonaysaa. qodobkan hore waxa weeyaan waxay qaadan laayihiin in dad Jigjiga iyagoo jooga ay shir qabsan karaan oo Jigjiga ay wax ka socon karaan maadaama dadka cidii hadashaba afka lagu boodi jiray oo maaragtay dadku meel kale ay u carari jireen. arrintanna maadaama isla xisbiga dhexdiisii ay tahay waxay doonayaan number 1 inay sameeyaan crackdown in dadku ay kala cararaan Jigjiga laga baxo. marka dadka doonaya inay wax saxaan maadaama la rabin inay Jigjiga ka baxaan waxay diidan yihiin marka in arrintii ay sii socoto inay marka khalkhal geliyaan oo khalkhal ku beeraan dadka taas way qaadan kari laayihiin. waxa kale oo ay sameynayaan amni darro ay doonaysa in iyagu ay wax u goyso oo dadku iyagoo nabad xirada laguma geli karo. marka waxay rabaan inay khalkhal abuuraan si tallaabo ay uga qaadaan oo dadkii la beegsanaya haddana lagu eedeeyo sababta looga tallaabo qaaday. arrinta ugu muhiimsan oo tan u sameynayaan waxa weeyaan waxa ku soo noqday propagandadii iyagu ay sameynayeen ya dib ugu soo noqotay oo hadda iyaga ku noqotay dambi. propagandadii ay abuurayeen baa dib ugu soo laabatay dastuurkii bay ku khaldameen. arrintiiba la isku haystaa marka cidda wax afgambiyeysay cidda argagixisada ah waxaasoo dhan oo hadalla munaasib aan ahayn. waxa marka hadda dambi bay ku jiraan marka la eego criminal code xeerka ciqaabta Ethiopia qodobkiisa 486 407 402 iyo kan kale oo ah 238. marka waxay rabaan hadda in dhibaatadii ay dad kale u xambaariyaan oo isla iyagii waraaqaha qoray warbaahinta afka Amhariga buunbuuniyay dhibkii markii la arkay in haddana yiraahdaan anagu afgambiga ma wadno ee maanaan sheegin dhibna maanaan wadin waxna maanaan tabanin ninkii abaadaya inuu noqdo kan mataqaana haddana isagu calaacalaya kan wax dilaya kan wax eriyanaya. marka hadda buuqan ay abuurayaan waxay rabaan inay yiraahdaan dad amni darro sameynaya baanu qabqabanay taas kalifaysa marka. okay Siraaj toddobaadkii saddexaad ayaa lagu sii saqayaa tan iyo markii aad ku dhawaaqdeen in aad u baahantiin isbedel lagu sameeyo hanaanka maamulka deegaanka Soomaalida isla markaana garabka sixitaanka oo isagu sheegay in loo baahan yahay in miiska wada hadalka la isugu yimaado. walina waxay u muuqataa in gurihii aadan ka soo bixi karin oo shirarkiini labaad iyo kii saddexaad intuba ay baaqdeen. siyaasiyiin badan oo barnaamijkan gacan ka geysanay ama hormuud u ahayna iminka xabsiyada loo taxaabay. maxaa xiga qorshaha xiga ee aad leedihiin hadda muxuu yahay? qorshaha xiga horta number 1 waxay ahayd waxaan in deegaanka lagu xaliyo oo dhibka laga wada hadlo maadaama wadanka iyo dalka la wada leeyahay. qorshaha xiga wuxuu noqonayaa in isbedelka iyo sixitaanka codkiisu uu socdo uuna istaagin meel walbana uu ka socdaa Jigjigadan uu ka socdaa. marka buuqa iyo qayladu iyaga u darnaanaysaa inay dadka sharci darro ku doortaan. waxa kale oo xigi doontaa kulli wadanku xaaladiisa wali wada hadalla iyo dagaalo waxba isdhex socda. waxa xigaya marka in laga warsugo xisbiga BB-da xaruntiisa dhexe iyo madaxdiisa sare oo iyagana la gaarsiiyay dacwadaas oo laguna maqan yahay. qorshayaal kor ka iman doona iyo kuwa hoos ka iman doona labadaba in laga warsugay noqonaysa insha Allah haduu Ilaahay ilaahay degdegin laakiin codka isbedelka iyo sixitaanku isagu soconaya habeen iyo maalinba. okay maxaa la gudboon xarunta dhexe maxay jawaabteedan ay ula soo daahday ku aadan in xaaladda deegaanka Soomaalida si wada hadal ah loo xaliyo tabashooyinka xukuumadda iyo xisbiga talada hay ee xarunta dhexe maxay la aamusan yihiin ay kula tahay ilaa iyo waqtigan oo ay xaaladda u eeganayaan? walorta procedure marka la eego waa laba arrimood oo uu tahay lama oran karo marka ay wax dhacaan cidii mas'uuliyadda halkan
ka haysay waa in lala soo hadlo oo waxaan qaab loo xaliyo taa markii ayagu ka meereysata ayay iyagu hawsha u oolaysaa marka ilaa hadda waxa wax qaadanaya waa 3 toddobaad wali ma buuxsamin wadanka xaaladiisa waad og tahay marka nidaamkii wax loo abrooj garayn lahaa iyo xisbigan BPda oo laftiisu shirweyne galaya muddo bil ah kadib tababarra lagu jiro oo mas'uuliyiinta sare oo dhan 3-4 cisho ka hor bayba dhameeyeen tababarkii oo la isu diyaarinayay shirweynaha iyo documentation marka arrimaha baa dib dhigaya in jawaab wali degdega xagga laga helo jawaabtu marka waxay noqonaysaa qaab mid u dhacda nidaam sharciya iyo sifo sharciya marka ma taahin baan ugu aaminsanahay marka la eego asraarka dawliga iyo nidaamka xisbigu qaabka uu socdo dokumentiga iyo qoraalkiisa iyo dacwada in loo kurgalo kuwana in la soo hadlo marka la yiraahdo amni darrada joojiya marka amni darrada joojiya markii la yiri waa kuwan dhibkii inaga inoo xambaarinaya eela anagu afkambi baa dhacay ma naan oran argagixisana ma naan sheegin dadkana dhibka wado oo idinka yiri bay leeyihiin ba hadda dooda kale ee ajaayibka hagaakaasi waxa uu hadda wadayaal Siraaj Aadan oo kamid ah siyaasiyiinta deegaanka Soomaalida isagoo jigjiga ku sugan qadka telefoonka noogu warramay magaalada jigjiga ayaa laga soo sheegaya tacdiye iyo dhibaatooyin ay maanta ciidamo lagu daadiyay wadooyinka kula kaceen dad shacab xilli wadooyinka qaarkoodna ay xiran yihiin sida faafahinta warbixintan uu ku eegay wariyaha Aamin Qaamuus tan iyo intuu deegaanku galay xaaladda murugsan ee hubanti la'aanta taasoo gundhigu ah sida ay hay'adaha amniga ee deegaanka Soomaalidu dhibaatada joogtada ugu hayaan shacabka fikirkooda iyo aragtiyadooda sida xorta u cabiraya kuwaasoo salugsan qaabka ay dawladdu wax u wado waqtigan xubnaha mucaaradka ururada bulshada iyo xisbiyada ka jira deegaanku waa kuwa si cad uga hor yimid nidaamka hogaamineed ee dawladda waqtigan talada deegaanku ka go'do haddaba ila wareedyo ayaa soo warinayay in dawladda oo ka cabsi qabta in xaaladdu ay faraha ka baxdo walow ay waqtigan marayso meel xasaasiya oo ay shacabka ku dalbanayaan cadaalad sidoo kalena iskaga helinayaan dulmiga cad ee dhanka dawladda ka soo wajahay isla markaana ay dhawaan hay'adaha amniga ay sida bareerka ah toogashada ugu dileen labada muwaadin ee u dhashay degmada Oobare ayay waxay dawladdu ciidamo aad u tiro badan maanta ay soo dhowtay wadooyinka iyo xaafadaha dhexdooda ee magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Soomaalida arrintan ayaana imaanaysa xilli shacabka deegaanka ay ku kala sugan magaalooyinka waaweyn ee deegaanka ay ku ballansanaayeen inay salaada Jimce kadib ay qabtaan banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan dawladda sidoo kalena cadaalad ugu raadinayaan Sharmaarke Cumar Cali iyo Cabdifataax Ismaaciil Bokh oo ay dhawaan hay'adaha amnigu ku toogteen degmada Oobare si kastaba aan noqotay ciidamada liyu booliska ee dawladdu soo dhoobtay wadooyinka iyo xaafadaha magaalooyinka waaweyn ee deegaanka ayaa shacabka kula kacay handadaad iyo cagajugleyn si fal loo cabsi geliyo xiriir aan la sameynay mas'uuliyiinta dawladda iyo shacabkuba waxay si weyn uga cabanayaan ciidamada liyu booliska ee magaalooyinka lagu soo daadiyay kuwaasoo xitaa mas'uuliyiinta u diidan inay wadooyinka qaarkood ku maraan gaadiid halka shacabkana haddii ay ciidamadu arkaan tir ahaan 2 qof ama wixii ka badan ay su'aalo weydiinayaan isla markaana ay xanibayaan xubnaha siyaasiyiinta ee mucaaradka iyo muxaafidkaba ayaa qaba inaysan waxba iska bedelaynin xaaladda taagan ilaa inta ay dawladdu xalka ku raadinayso cabsi gelinta handadaadda shacabka iyo madaxdaba balse ay lagama maarmaan tahay in si qoto dheer loo xaliyo loona maareeyo tabashada jirta dhanka kale dawladda ayaan wali ka hadlin ciidamadan dheeriga ah ee magaalooyinka waaweyn ee deegaanka ay soo dhoobtay balse wixii ka soo cusboonaada dhammaan arrimahaasi waan idin soo gudbin doonaa madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa aad ugu jahawareersan marxaladaha siyaasadeed ee cakiran ee ka taagan deegaanka Soomaalida isaga oo toddobaad gudihiisa isla dhacay gantaalo siyaasadeed oo saameyn weyn ku yeeshay xukuumaddiisa madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa toddobaadkani isla dhacay gantaalo siyaasadeed kuwa oo saameyn weyn ku reebay sumcadiisa siyaasadeed ee gudaha deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan dalka Itoobiya madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo hadda ay dul hoganayaan mowjado siyaasadeed oo ay adag tahay in uu si sahlan kaga baxsado ayaa 3 cisho gudaheeda isaga dhaliyay
dhowr gool kuwa uu islaha kaga baxso mawjadaha cakiran ee galay toddobaadkii saddexaad ee ka aloosan deegaanka Soomaalida kadib markii ay laba garab u kala jabeen xisbiga talada haylaantiisa deegaanka Soomaalida isla markaana golaha danta Soomaaliduna ay halkoodii kaga sii wadaan xukuumadda Mustafa Maxamed Cumar cadaadiska ku aadan dhalilaha la xiriira gaabiska jawaabta xukuumadda ee abaaraha ku dhuftay ku dhawaada 81 degmo oo ka tirsan deegaanka Soomaalida kuwa oo hadda la soo sheegay in xitaa ay dad u dhimanayaan gudaha deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo hadda u eg mid diiwaanka ku gali doona hogaamiyihii ugu taariikhda khallafsanaa ee deegaanka Soomara uguna nasiibka badnaa marka la eego sida uu kursiga ku yimi ayaa hadda kursigiisa waxaa dacalada haysta xoogag siyaasadeed kuwa oo ku dhaliila madaxweynaha eedeymo mug leh oo wax badan ka goon kara miiska siyaasadda ee Ethiopia jaha wareersan madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa loo jeedinayaa dhowr eedeymo oo ay adag tahay in uu si fudud ugu baxsado waxayna kala yihiin musuqmaasuq baahsan oo xadkaha gooystay ku tagrifal awoodeed iyo nin jeclaysi awoodda dowladda uu ku soo koobay koox yar oo isku heeb yihiin gudashalaan waajibaadkiisa oo tusaale loogu soo qaata qaabka ay xukuumaddiisu u wajahday abaaraha deegaanka ku dhuftay iyo eedeymo kale oo la xiriira xuduudaha deegaanka Soomaalida oo la sheegay in isaga iyo hogaankii hore ee deegaanka Soomaalida Xuseen Qaasim ay si ka baxsan dastuurka deegaanku ay uga xadgudbeen haddii aan dib ugu soo laabano warbixinteena saddexda gantaal ee toddobaadkan uu isla dhacay madaxweynaha ayaa waxay kala yihiin ku tilmaamida madaxdii hore ee deegaanka soo martay kuwa dambiilayaal ahi Mustafa 14 bishan ka hadlayay buuqa siyaasadeed ee maalmihii la soo dhaafay lagu furay xukuumaddiisa ayaa waxa uu soo qaatay qodob dad badan la yaab iyo fajac ku noqday ka oo ku qasabtay in laba habeen kadib uu ugu daba yimaado warbaahinta si uu faahfaahin ugu bixiyo hadal gaf ah oo u geystay madaxdii hore ee deegaanka soo martay isagoo hadalkiisa ku soo qaatay in haba yaraatee madaxdii hore ee deegaanka soo martay oo aanu kala qaadin ku tilmaamay kuwa dambiilayaal ah oo aanu marna u hayn wax maamuus ah hadalka madaxweynaha oo laga dheehan kari jahawareere iyo xamaasadda ayaa ku qasabtay in Mustafa Maxamed Cumar uu ka daba yimaado laba habeen kadib isagoo codsaday madaxdii hore in ay raaligelin ka bixiyaan bedelkii uu isagu raaligelin bixin lahaa kadib waraysi uu ka codsaday madasha Dhab TV oo uu siiyay waraysi dheer oo saacado badan soconayay qodobka labaad maalin kadib madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa xukuumaddiisa la dhacay gantaal siyaasadeed oo aan laga fiirsan isla markaana argagixiso ku abuuray shacabka deegaanka Soomaalida kadib markii uu laamaha ammaanku u soo dhiibay war ahaa in xukuumaddiisu ay fishilisay waxa ugu yeeray afgambi dhicisoobay lamaha ammaanka ee heer federaal oo iyagu 15 bilood ee la soo dhaafay hortaagna kooxda TPLF ayaa aad ugu carooday war-saxaafadeedka laablakaca ahaa ee ka soo baxay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ka oo uu ku sheegay in ay soo weerareen argixisad rabtay in ay kursiga dhaafiyaan tani waxay ahayd dharbaaxa siyaasadeed oo maalmo gudahooda uu iskula dhacay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo aad ugu jahawareersan kala saaridda barahiisa bulshada iyo marxaladaha siyaasadeed ee ka aloosan deegaanka Soomaalida talabada saddexaad waa sida uu u maariyay madaxweynaha muujadaha siyaasadeed ee dul hoganayay xukuumaddiisa February 6 sanadan aynu ku gudu jirno dhul gariir siyaasadeed ayaa ku dhuftay magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida waxaana markii ugu horeysay karkaarada jabsaday dood in badan huursaneeta oo ahayd kala qaybsanaanta ka dhex taagan xisbiga barwaaqo laantiisa deegaanka Soomaalida markay saraakiishan oo xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadda madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar isla markaana kamid ah golaha dhexe iyo kan fulintuba ay ku dhawaaqeen in xukuumaddu ay fashilantay dad badan ma filayn in xukuumaddu ay ku jawaabi doonto awood ciidan oo degdeg ah
taabadarkeeda madaxweyne mustafa maxamed cumar ayaa howlgeliyey boqolaal saraakiishiisa liubooliskaahi si ay ugu jawaabaan isbeddelkan qarribay maskaxdiisa iyo sidoo kale xukuumaddiisa intuba waxa uu adeegsaday ciidamada deegaanka Soomaalida inuu ku caburiyo cid walba oo sameyn karta dhaqdhaqaaqa siyaasadeed waxa xabsiyada deegaanka Soomaalida buux dhaafiyay boqolaal dhalinyaro ah kuwaasi oo isugu jiro ardayda iskuulada dhalinyarada jaamacadaha iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa deegaanka intuba talaabadan dad badan waxa ay ku noqotay filan waa in 3 sano iyo bar kadib madaxweyne mustafa maxamed cumar uu ka soo talaabo xadka iyo halkii uu ku dhaliili jiray madaxweynihii isaga xukunka ugu horeeyay cabdi maxamuud cumar cabdi ilay oo haatan u xidhan dowladda Itoobiya lama oga halka iskala dhici doonaan madaxweyne mustafa maxamed cumar iyo liubooliskiisa oo garab ah iyo xoogaga isbedel doonka ee kaashanaya saxaafadda madaxa bannaan ee dibad jooga halka daawadan nagala socotaan waa Karamarda TV warar badan oo la xiriira deegaanka Soomaalida iyo caalamka ayaa noo soo socda balse shacabka ku dhaqan gobolka Doolo ee deegaanka Soomaalida ayaa ka cabanaya abaar dadka iyo dunyadaba halis ku haysa waxayna sheegeen in aanay wax gurmad ah wali ka helin dhinaca xukuumadda deegaanka Soomaalida oo iyadu sheegtay in milaayin bir ay u qoondeysay jawaabteeda ku aadan arrimaha abaaraha ee ka taagan deegaanka Soomaalida faahfaahinta warbixintan wariyayga Qadar Alsoos ayaa eegaya gobolka Doolo ee deegaanka Soomaalida oo kamid ah meelaha ay abaartu saameynta baaxadda leh ku yeelatay ayaa waxa hadda laga dayrinayaa nolosha dadka sidoo kale waxgaradka gobolka ayaa dhaliil u soo jeediyay xukuumadda deegaanka Soomaalida oo ay sheegeen inaysan wax xil ah iska saarin gurmadka loo sameeyo shacabka deegaanka Soomaalida Sheekh Xuseen Bedel oo kamid ah culimada iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka Doolo ahna xubin kamid ah ururka Dulmidiid ayaa waraysi siiyay Karamarda TV wuxuuna yiri sidan Sheekh Xuseen Bedel waxa tahay qof culimo ama sheekh kamid ah culimadiinka deegaanka odayaasha dhaqanka kamid tahay gaar ahaan odayaasha dhaqanka ee gobolka Doolo iyo guud ahaan deegaankaba waxa tahay xubin kamid ah Dulmidiid bal ka waran xaaladda guud ee deegaanka iyadoo abaara baan lagu jiro xaalado kalena ay jiraan gobolka Doolo xagee maraysa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam ilaahi wa ma'alla dinkana intii ilaahi sallallahu allahu karim adaan ku hormaro xagga caalamka inaga soo ka jirta ilaadu ballaadan ma ka jirta abaar xadadkeedu aad iyo aad u xoog badan yahay ayaa ka jirta dadka maaragtay dadka xoolihii way ka madheen dadkii uu ku daba jiraa biyo ma haystaan maaragtay abaartu waa mid qallafsan wax loo gurmada oo dowladdu gaarsiisayna ma jirto wixii hay'ado ka yimid oo gaarayna ma jiraan laakiin waxaan u mahadcelinayaa dadka مثلا 9 gobol baa abaarta u daran gobolka Doolo waa ka mid dadka reer Faafaneed oo si qaali u soo dhaweeyay arrimihii ma garanaysaa dadkii soo qaxay waxyaabihii ka yimid dadkaasaan aad ugu mahadcelinayaa dadka waxaa loo sameeyaa masaajidda looga ururiyaa wax dowladdu siisaano ma jirto wax hay'ad siisaano ma jirto masaajidda wax looga ururiyaa anigu hadda tusaale ahaan family baan hay family kayga aqal baan leenahay annaga biyaha dhaansanna waxa wax dhan noo ahaan lahayd in dadka la isku ururiyo sidii abaartii hore ee xukuumadii hore oo kale oo dadka meel la isugu geeyo oo aanu meesha ugu gurmano marka dadku abaar baasan oo qallafsan oo aan gurmad lahayn oo garasho lahayn baa ka jirta insha Allah kariim deegaanka oo dhan gobolka Doolo haddaan dib ugu noqdo soo laftiisa waxa weydiisay waxa la wax gaaray ma jiro meelaha abaartu aad ugu qallafsan tahay uu ka mid yahay xooluhu way dhimanayaan gobolka Doolo weli dad kuma dhiman meelaha lagu dhimanayaa afleer baa ka mid ah saaka waxaan arkay islaan qabri laga dulkicin waayay oo wiilkeedii ilmaheedii yaraayo gaajo iyo oo dhintay dul fadhiga laakiin gobolka Doolo weli cid uma dhiman eelashii iska daa wax kale lama geynin matooro eelku markuu maalmo soo turtuuro biyaha uu kululaanaya wasaaradda biyuhu ma ayna geynin matooro isbeera
booyadihii lama geynin oo dadku booyado ku filan looma geynin waxoogaagii cabdii labuuray ee xabad u jooga meesha kuwaasina dayactir ma haystaan hadda danoo kale waa waxa weeye booyadii way ka fadhiday wardheer booyadii way ka fadhidaa daratoole booyadii way ka fadhidaa dadkii de waad garanaysaa shidaalkii baan dadkii leeyahay oo shidaalkii yaa dadkii leeyahay xalay waa layidhahdayay waxaa lalahaa gebigay shidaal baan milan cabbi jiray booyadii shidaal bay ku dhaqaaqaysaa matoorkiina baalkii buu leeyahay dowladdan inay dowlad isku xidhan maaha qof waliba xafiisku jooga isagaa iska insha allahu kariim sheekh xuseen bedel waxaad ka mid tahay culimada waaweyn ee deegaanka iyo odayaasha iyo salaadiinta dhaqanka ee deegaanka mar kalena waxaad ka mid tahay dulmidiid ama ururka ama xisbiga dulmidiid dowladda wax xidhiidha ma la samayseen in gurmadka ay laba jibaarto waase sidee gurmadka dowladda ee xilligan ku aadan dhinaca arrimaha abaaraha su-aal aad iyo aad baa umahadsantahay adeer waan ula samayna xidhiidh wax jawaab ah oo na qancisana kamaanaan helin maalintii isniintii annagu waxaanu qabanay shir jaraa'id inaad aragtay baan u malaynayaa shir jaraa'id baanu qabanay shirkaa jaraa'id waxaanu ku sheegnay in dadku isu gurmado dadka shacabkiina iyagu isu gurmadaan laysu danqado la gaadhsiiyo dadka ruuxba ruuxu wax tari kara raashinka bisil in la qaybsado in dadka abaaraysan loo waxeeyo baaq kale waxaanu u dirnay in maaragtay dowladda mustafa xajar waati cabdiilay oo kale wax kastaba iyadaa daalac ku leh dadka ilaysa iyadaa daalac ku leh abaaraha iyadaa daalac ku leh garawsha malaha waxyaabaha in aad u soo dhigto jawaab aan ku qancinaynin baa laga bixinayaa wax gurmada oo dadka la gaadhsiiyey iyo waxna laga aqoonsaday ma jiro bal iska daaya dadka nooeelkeena yaqaana dadka aan la mida waxay leeyihin waa laydin qabanaya waa laydin xidhayaaye iska ilaaliya insha allahu kariim waxaan maalin walba arkaynaa in jeegag iyo lacago deeqoo fara badan ee lasoo bandhigayo oo xukuumaddu ay ka helaysa ama deegaano kale oo kusoo caawiyey say sheegeen oo deegaanada etoobiya ama dad kale oo isxilqaamay ama hay-adaha samafal ay bixiyeen ama ay ganacsata bixiyeen dhammaan budgetkii dowladda guud ahaan waxaasoo dhan ogaantaa wax gurmada oo hadda muuqda oo la sameeyey ma jira miyaad leedahay adeer horta waad mahadsan tahay waxaa di waanu kula arkaynaa waa waxaanu garan weyne meel la geeyo dadka noo damqaday ee etoobiyaankina aad bay u mahadsan yihiin laakiin dadkaa wax gaadhay iyo wax gaadhaa ma jiro maa shalay iyo maanta waxaan arkaya lacago laysku sawirayo dadka markaanu la hadalleen lacag leyni ma laydin siiyeyna maya bay leeyihiin ma laydin siiyey lacag maya meelaha baahidu ka jirto maya iska daaya dadka in maaragtay waxyaabaha ay haystaan technication loo sameeyo capital loo sameeyo xagga shidaalka laga kabo waxyaabaha culayska ku dowladda waxaa ka mid a ganacsiga xilligan oo kale in la fasaxay u baahan yahay gargaar xilligan oo kale waxayna iyagu bixinayn inay fasaxaan xilligii khadar macallin oo kale haddaan ka soo qaadano abaar baa dhacday aad u weyn way ku dhawaaqeen meeqaankeeday kuwani qarinayaan kuwaas way ku dhawaaqeen iyadoon dowladda etoobiya ogolayn ayay ku dhawaaqeen waxay noqotay in gaadhiga berbere ka soo qaada raashinka isla markaaba uu geey mooyaale arrin jirtay ahayd waxa weeyaan waxaa wax dhan dadka u ahaan lahayd gaadhiga hadda raashinka ka qaada jijiga ama meel ka soo qaada ilaa meesha uu tegayo waxa weeye 20 kilomitir markuu socdo baa 20 kun 30 kun baa laga qaadaya cashuura dowladdu waxay awood u weyday in dadka ganacsatada ah si firiir ah ay u tiraahdo dadka abaaraysan wax u gaarsiiyey inay wax gaarsiiso iska daayo waa tahay sheekh xuseen bedel waxaa tahay qof culimaa mar kale haddaan ku celiyo oday dhaqameed baa tahay xisbiga dulmidiid baad ka mid tahay maxaad ugu baaqaysaa xisbiyada kale guud ahaan shacabka soomaaliyeed maxaad ku baaqaysaa afar baaq baan dirayaa waa garta afarkaa baaq waxaa ka mid a dadka soomaaliyeed meel ay joogaanba inay isu gurmadaan oo gargaarka aysan siiyaan waxaanan u mahad celinayaa gobolka faafan sida degmada qabri bayax iyo degmada jijiya iyo dadka culimada ee ku nool dadka baahan say ugu gurmadeen qof walowba isugu gurmo adoon aad ugu nirtaagin dowladda iyo waxba toona dadweynaha ninkaa faraya odayaasha makarafoonka ee shalayna cabdi ilay makarafoonkiisa haystay maantana makarafoonkii ina ilay loo wareegay oo dhinaca jar makarafoonka u hayana waxaan leeyahay dadka calooshiina ku mateli kari maysaan dadka calooshiina ku mateli kari maysaan daamankiina ku mateli kari maysaan dadkiinii baa baaba'aya haddaad wax qaadateenna xaq baad u lahaydeen waxaa kaloo baaq u dirayaa
siyaasiyiinta deegaanku ayayna ku mashquulin deegaanka siyaasiyiintiisu ha la yimaadaan markab ama maskabad maaragtay dadka lagu badbaadiyo hadduu mucaarad yahay iyo hadduu muxaafid yahayba waxaa kale indiraya xukuumadda oo hogaamiye mustafa maxamed cumar ina xagsan meesha magacii baa isma bedelin systemkii isma bedelin anigu waxaana dadkii ka hor yimid ina cabdiilay ha ku talagala waxaanu cabdiilay ka diidnay ka yeeli mayno isaga anagu waxaanu cabdiilay ka diidnay ka yeeli mayno darre ka yeeli mayno mabaasad darre ka yeeli mayno garaacaysna la garaaca ka yeeli mayno sharciguna maaha qurgaabkiisa sharcigu waa system qoran oo lagu noqdo tusaale ahaan haddaan ka soo qaado imika 5 qof haddaan dilo oo meeshii aanoo taagan la yimaado in lay dilo maaha in la taabta maaha maxaa ka dhalanaya haddii lay dilo 3 qodob baa ka dhalanaya kow kiiskaan waxu dilay wuu lumayaa kiiskii aan waxu dilay wuu lumayaaba laba waxaa lumaya qofkii aniga i dilay anoo kaluu noqonayaa oo gacan dhigla soo kordhay buu noqonayaa dadkii maaragtay ninkan kala ujifada ameelka u ahaa mabaalgudhayga u ahaana qanaaca heli maayaan waxaa loogu talagalay qofku markuu dilo waa dembiga ugu sarreeya dowladda Itoobiya dastuurka Itoobiyana caburin ka mid maaha kuma caayano kuma aflagaadayno laakiin waxaanu leenahay madaxweynuhu uu hoggaansamo xisbigiisa annagu afaafka ka daawamayna yaa cabdiile tusaalaan markii la yidhi xabaddu way ku dhacday xagga dambe unbaa nin laga soo geliyey system xisbina kuma imaan isagii baana wuxuu caayaya madaxweynayaashii deegaanka taariikhda adag la soo maray isagoo xabaddu xagga horena kaga socoto xagga dambena kaga socoto labada dhinacba la isku dilayo horumarka gaadhsiinayey dhisayey jaamacadaha dhisayey maamulada dhisayey sida xisaabtamayey kuwiiba caayaya caayna waxay mudan yihiin meel walba in taariikhdooda lagu waxaan uga faa'iidaysanayaa maanta sadaynu haysano weligan minaan helin adoon su-aashaan weydiinin baynaan weli helin lacagta maanta la haystana weligeed lama helin madaxweynuhu ma maamuli karo lacagta soo gaadhay aad sheegaysa deeqaha kabitalka lacagta sanad walba la qabto ma maamuli karo nin walba xafiiskiisa wixii ku dhacay isaga iskale mar hadday sidaa tahay madaxweynuhu waa nin macnale nidaamkii xisbinimana wuu ku fashilmay inuu meesha iskaga tagaan kugu baaqaya wixii cabdi ilay ku dhacay wax ka xun baa ku dhici mana aqbalayno waxaanu cabdi ilay ka diinay isaga kama yeelayno waxaa kalean ugu baaqaya nidaamka xisbiga ee kacay tusaale ahaan kaadirinimo la-aan unbaa meesha taalla xisbiga looma tababarto madaxweynuhu wuxuu eriyadaa ninkii baraha bulshada lagu soo qoro wuu fiican yahay uu shaqada kacayga yaqaanaa kama hayga yaqaano lamana xisaabtami yaqaano corruptionka iyo ciriiriga iyo dadka la laynayo anigaan kula hadlaya intii la idin hor istaagay aniga hor istaagay baan ku wuri 9 degmo waagi cabdi ilay soo mariyay inta gaari qabaala laygu qaaday maalin saa la yima fiicin halkana intii la idin aanoo qaawan gurigayga layga soo jiiday suuqa saa la ii dhex jiiday madaxweynahana waanu tegin laanaanan tegin male awood uma laha inuu keeno waxaa xusid mudan ninkii hoggaanka nabadgelyada ku-xigeenkiisa ahaayoo guray la yidhaahdo yaa danood yimid baa la yidhahdo dhaawacoo danood alla odayaal baa isku dayantay garabkay qabtaan inay geeyaan ninkii dilay oo gacanta ay haysta ayaan u tegi waan quustay markaa inayna cadaalad jirin dilkii baa sidii u jira garbaaxadii baa sidii u jirta dadka waxaa lagu yidhaahdaa xorriyata qowl baa jira waa been weeyaan waxaa dhegaysan xorriyata qowl hadday jirto dadka imika qaaranka u googoosanaya maxkamadaha ku daraya faraha ka qaadana la xisaabtama xisbi dadweynuhuna ina cagjar ha ku tagalo wixii cabdi ilay ay ka diideen ka yeeli maayaana waa mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsan tahay sheekh xuseen bedel aad baad mahadsan tahay alsoos aad iyo u mahadsan yahay mar kale wariyayga qadar alsoos ayaa wareysi la yeeshay doctor Sooyaan Macalin Axmed oo kamid ah dhaqaatiirta deegaanka Soomaalida isla markaana kormeer ku maray degmooyin badan oo ka tirsan deegaanka Soomaalida kuwaasi oo ay ka taagan yihiin xaalado isbiirsaday oo saameeyay dadka iyo dunyada wareysiga wariyayga qadar iyo doctorka dhexmarayna sidan ayuu u dhacay
دكتور سويان معلن أحمد وحات هاي دكتور قيبت في الدور كدتك وحات صوص ميسين assessment أما كرمال ربضان أو ديجان كقصص ميسين مالك الدون بل هذا نقول رنت حالة الجود ديجان ك لين كستبا سوي حالة هذا الجود ديجان كو وظيفتي خضر وحاول دخاتير بدل ما يرسكون طلعوا الله يفندقها وكل دون وحاصل من واحد assessment عمل وش كذا يصير حالة الأولاد الدياجة كمان أقول لك أما أقدر يعني عشان من الصبر كانوا كتاريخ وحد ما waxaan aad ku dhaxeeyo dhamaan dadkii waxaan u soo qaxeen dhamaan santarada xariiraha tuulo wadada maxaa ku dhacay shabaab ilaa iyo maxamada gudi awridaar dhagaxbuur ilaa iyo gobolka noqob erer ilaa meesha shabeel ilaa dood waxa gaaray dhaqanay xaalada nololeed waa mid aad u liidata marka loo eego waxa deegaanka ka jira iyo xaaladdu meesha marayso waa mid aad u kala duwan maxaan ku raahday xukuumadda meesha ka jirtana markaad eegtid habka u dhaqmayso iyo miisaaniyadda ay haysato iyo dadka goobta iyo dadka si u dhamaanayaan iyo marka waxaan ku sheegayaa waxa markaad fiirisid wadaysaa xukuumadda meesha ka jirta in aynan dadka iyo dalka lahayn oo arxamaynin ama taqaana wax naxariis aynan u haynin inta xigta waxaa hadda baaba'ay dhaafay dadka xoolo dhaqatada ama loo yaqaan pastoral community ama loo yaqaan nomadic guuraaga ah xoolo ay hayeen dhammaan way dhaafay soo hareeraha laga tuubay dadkii xukuumaddu waxay wadaa wax yar oo raashin oo ay meelaha qaar ka qaybinaysa agagaarka qabribayax iyo marka haddii aad gaadhid dhagaxbuur iyo wixii ka shisheeya dhammaan wixii xoolo oo joogay waa ku daayeen markaad fiirisid habdhaqanka xukuumadda maanta jirtana ma aha mid mataqaanaaye ku filan ama mataqaanaaye dadkani u adeegi karta ma aha marka horta kuu sheego dadkani waxay u baahan yihiin samata bixin dhab ah xaaladdu way ka duwan tahay tii 2000 oo kale way ka daran tahay waxaa lagu tilmaami karo maanta xaaladda ka jirta deegaanka soomaalida دكتور سويان معلن أحمد هذا أنت كان حق هالكاس maalin walba waxaan aragnaa iyadoo la leeyahay deeq baa ka timid muxuu ahaay federaalka qaybihiisa kala duwan waxaan aragnaa dad baa wax ku deeqay ganacsataa waxaan aragnaa iyadoo la leeyahay jeegag la guddoonsiinayo lacag ku qoran yihiin xukuumadda gurmadka xukuumaddu xaggee bay gaabiska kaga jiraa maxaa sababay in deeqahaas oo dhan dadka gaari waayaan see weeye maxaa wax jira see wax jiraan maasan tahay meeshani waxa ka dhacay waxa la yiraahdo qofkan uu dhaafay meesha wax ka jiro waa daily robbery waa burcad maalmeed ma oran karo waa musuq waxa weeyaan xukuumadda meesha ka jirta ma laha mataqaana waxa la accountability and transparency isla xisaabtan ma jiro hay'adii caalamiga ahaan baaq umayna diro way ka gaabisay marka runta ku sheego waxa weeyaan meeshani ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa la geeyay qabribayax meel calaf iyo lagu diyaariyay dad iyo xoolo iyo lagu diyaariyay oo mataqaana ay ka jirto nolol iyo adeeg dawladda oo ka jira la geeyay halkaas dhibaatada waa lowland wixii ka hooseeya dhagaxbuur waxa ka sheegay halkaas waa lagu dhamaaday waxba kama harin xoolihii dadkii dhibsada qodobka afgariga iyo gobolka noqbeed iyo qolka soo dowladda Shabeelle ma kala laha aan ku rahay dad wal xukuumad wal bulshiyada malaayiin lacag deegaanada kale ee sida oromada iyo maamulka dhammaan waxay ugu direen hasaatay ma jirto waxa skill managerial management maamul iyo maareen sax ah kama jiro marka dadku dhamaanaya xoolaha oo aysan inay xukuumadda qarinayso marka kulada abaarta ka hortag baan u sameynay abaarta ka hortag waxay in laga diyaar garoobo dhowr bilood soo ay marka aysan ku hadlayo ninka uu sareeyo mas'uulka mataqaana madaxweyne Mustafa ee goobta uu ka sheegay goobaha iyo waxa gudaha ka jira ismaha marka runta la hadlo marka haddaan hadda la gaarina waxay noqon doontaa xaalad iminka aan kula hadlay way dhaaftay abaar waxay maraysaa malnutrition waxa macaluul nafaqad darre maraysaa corruption kura waa saayid taqaanay buskudkii hilibka isaga nafaqada degmooyinkii ay maamulada iibsanayaan magaalada kuma meel hore wax ka geysaayo waxaan fiirinaa dadka qaar baa hataa lagu naasnuujiyay qandaraaska la bixinayay iibka raashinka oo taqaanay
war meeshu xukuumadda kama jirto markaas fiirisaas leedahay iyo xukuumaddu meeyan dadkan arxan u ahayn naxariisayn marka dabcan haddii aad hayso abaarta ay ka sameeyaan dadka taa gurmadka ka sameeyaan dhaqamaya dadka maalqabeenada waa la siyaasaynayaba cidna ma hadli karto cidima hadli karto ruuxa ku sheego waxa kastoo madaxweyne Mustafa wuxuu ka dhigay waa siyaasadeeyey ummadii oo dhan mataqaanaa waxay noqotay cid gabanaysa oo aan waxba mataqaanaa cidii gurub aad ka gabanaysa ruuxa ku sheego laakiin hadda waxaan aniga oran lahaa IBS international implementer hay'adaha caalamiga ee gargaarka aadanaha bixiya baaqtoos in loo diro inaan dowladda federaalka laga qarinin miisaaniyadii ay dowladda haysta haddii la maalgelin lahaa way ka badnaan lahayd deegaanka san aaminsanahay iyo dadka shacabka Puntland ruuxa ku sheego marka meesha waxa ka jiro waa masiibo qaran waa waxa ku dhacay iyo hogaamin ma jirto marka ruuxa ku sheego haddaba dhakhtar Sooyaan maxaad ugu baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed haddii aad sheegtay in xukuumaddii aysan jirin isla xisaabtan dhammaan mucaawimadii la musuqay meeshina ay hadda nafaqa darro iyo macaluul ka jirto xoolihiina mar hore tageen dadka Soomaaliyeed maxaad ugu baaqaysaa haddaba waxaan ugu baaqay gurmad degdeg oo caalami ah oo gudaha iyo dibadda ah inay u sameeyaan dadka masaakiinta aan soo arkay ee dhibaatada ku dhacday ee wadada jayga iyo wadada laamiga hareeraha soo daadsan ee dhaafaya weeyaan xaqiiqda laga hadlo iyo in taqanay booliska eedaasha sida hay'adaha caalamiga noqoto UNHCR noqoto kuwa emergency caalamiga intoos baaq loogu diro inaan gudaha iyo dibadda loo istaago meesha ma oran kara maamul ummadda matali karaa jooga ma oran ku sheego waa ay hawshu marka dhinaca walbaba waxaan oran karaa maamulkaas meesha waa gabaroka markaad fiirisid naqanaya xagga judiciaryga cadaaladda waa eber markaad fiirisid xagga mataqaanaa musuqu asriya mid la qarin kara maaha xafiis kara meesha marka dadkaasi maanta waxay u baahan yihiin gargaar caalami ah iyo dibadda jooga iyo gudaha gacantiina u baahan yihiin gacanta ilaahay abaartun waa mid masiibo oo faafistay waxaana keentay cadaalad darrada iyo maamulada keento qadar al-soosaad aad uu mahadsan yahay daawadayaal wararkeena habeenimo ee telefishanka Karamarda ayaa si toos ah ula socotaan bangiga adduunka ayaa 60 milyan oo dollarka Mareykanka oo wax laga qabanaya abaaraha ugu deeqay deegaanka Soomaalida waxaana kale oo maanta 20 milyan oo bir ku yaboohay madaxweynaha deegaanka Sidaamo oo isna jigjiga yimi faafaynta warbixintan wariyayga Cabdi Fataax Mursal ayaa eegaya banka adduunka ayaa lacag dhan 4.6 milyan oo dollarka Mareykanka ku taageeray deegaanka Soomaalida si wax looga qabto abaarta baan ee ku dhufatay shacabka deegaanka mas'uuliyiinta sare ee xukuumadda deegaanka iyo kuwa banka adduunka ayaa kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee magaalada Jigjiga waxaana kulankaas ujeedadiisa lagu sheegay xoojinta dadaalada kala duwan ee gurmadka abaaraha iyo qaran ururinta loogu jiro kadib markii ay mas'uuliyiinta dawladdu ay sharaxaad kooban ka siiyeen mas'uuliyiinta banka adduunka xaaladda abaarta deegaanka iyo heerka ay waqtigan marayso waxaa madaxda banka adduunku ay shaaciyeen in ay ugu deeqayaan 4.6 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo ay doonayaan in wax laga qabto xaaladda abaarta lacagtaas ayaa wajigii koobaadba oo dhan 38 milyan oo dollar la sii daayay geesta kale dawlad deegaanka Sidaama ee dalka Itoobiya ayaa shacabka deegaanka Soomaalida ugu deeqay 20 milyan oo bir oo ay doonayaan in wax laga qabto gurmadka abaaraha ee loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar injineer Maxamed Shaale Isaaq oo ah madaxa xafiiska xisbiga barwaaqo ee Soomaalida iyo wasiirka xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka ee dawlad deegaanka Yaasiin Sheekh Ibraahim ayaa deeqdani ka gudoomay mas'uuliyiinta deegaanka Sidaama oo ugu horeeyo madaxweynaha deegaankaasi madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay taageerada ay u muujiyeen shacabka Soomaalida deegaanka Sidaamo isagoo sheegay in ay tahay maalin taariikhi ah oo aan la ilaawi karin waxaanu yidhi lacagta waxaa ka sii muhiimsan wakhtiga adag ee aad dareenka damqashada leh noo muujiseen shacab iyo dowladba geestiisa madaxweynaha dowlad deegaanka Sidaama
Desta Lidamo ayaa sheegay in shacabka Soomaalida iyo Sidaamo ay weligoodba ahaayeen shucuub taariikhiyan isku xiran oo iscaawiya marka dhinac dhibaato ka timaado ama ka dhacdo. Sidaa daraadeedna ay maanta deegaanka u soo gaarsiiyeen deeqdan oo uu sheegay inay ka timid xukuumadda, ganacsatada, bulshada iyo culimada deegaanka Sidaama. inkasta oo deeqa badan oo kala duwan oo gurmadka abaaraha loogu talagalay ay heshay dowladda deegaanka Soomaalidu, haddana waxaa weli taagan cabashada bulshada deegaanku ka muujinayaan inaan gurmad muuqda la gaarsiinin, iyadoo oo dadka ay xooluhu ka dhammaadeen isla markaana ay gaajo iyo haraad ba'an la liitaan, halka deegaanada qaarkoodna ay dad ugu dhinteen gaajo iyo haraad ka dhashay abaaraha deegaankaasi saameeyay. cabdifatax aad ayuu u mahadsan yahay taliyaha guud ee ciidamada Leopoldska ee deegaanka Amxaarada ayaa xilka laga qaaday, waxaana soo baxay warar iskhilaafsan oo ku aadan sababaha keentay in waqti xaadirkan xilka laga qaado. wariyayga Geeska Afrika ee Qadar Al-Soos ayaa faafahinta warbixintan soo diray. taliyihii guud ee ciidamada gaarka ah ee Leopoldska ee dowladda deegaanka Axmaarada Brigade General Tafare Mamo ayaa xilkii laga qaaday, waxaana taliyaha guud ee ciidamada Leopoldska deegaanka Axmaarada loo magacaabay General Mazale Belete. si toos ah looma oga sababta keentay xilka qaadista taliyaha, lamana faahfaahin, balse dadka arrimaha Itoobiya ka faalooda ayaa sheegaya inay la xidhiidho kala shaki iyo khilaaf waayahanba soo socday oo u dhaxeeyay siyaasiyiinta deegaanka Axmaarada iyo xukuumadda Abiy Ahmed, kaas oo sii xogeystay kadib markii uu ku baaqay Abiy Ahmed in hubka dhigis lagu sameeyo maleeshiyada Axmaarada xag jirka ah ee Fano, oo ay dhawaan hay'adda nabad sugidda iyo amniga qaranka ee Itoobiya sheegtay inay halis ku yihiin amniga qaranka. baaqa iyo dalabka xukuumadda Abiy Ahmed ee hubka dhigista maleeshiyada Fano markii uu soo baxay ayaa waxaa si degdeg ah gaashaanka ugu daruuray, isla markaana ka hor yimid qaar ka mid ah siyaasiyiinta, qurba joogta iyo saxafiyiinta deegaanka Axmaarada. waxaana ugu horreynba markaas la hadlay warbaahinta wasiirka warfaafinta ee deegaanka Axmaarada, kaas oo sheegay inuusan garanaynin sababta ay Fano ugu muuqato khatar weyn, isla markaana ay Fano mudan tahay in dib loo abaabulo la siina hubeeyo, maadaama buu yiri ay difaaceen shacabka Axmaarada iyo kan guud ahaan Itoobiyaba. xilka qaadista mid ka mid ah shakhsiyaadkii ugu awoodda badnaa deegaanka Axmaarada ayaan la ogeyn waxa ka dhalan kara iyo sida ay ugu hoggaansami doonaan ciidamadu taliska cusub ee loo magacaabay ciidamada Leopoldska ee deegaanka Axmaarada. akhbaraadkeena caalamka daawadayaal, haddii aanu eegno madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa jimcaha maanta u ballansan in uu hogaamiyaasha dalalka ku jira gaashaanbuurta NATO uu kala hadla xiisada ka taagan Ukraine. aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynuhu uu hogaamiyaasha ogeysiin doono dadaalada Mareykanka ee diblomaasiyadeed iyo kuwa kareebida ah in Ruushka uu fal ku kaco. khamiistii shalay ayuu Biden yiri aad bay u sareysaa suurtagalnimada in Ruushku uu weeraro Ukraine dhowr maalmood gudahooda. isaga oo la hadlay warfideenada aqalka cad ku sugnaa ayuu yiri waxaa jira sababa aan rumaysan karno in ay diraarinayaan howlgalo marmarsiyo ah si ay duulaan aan sabab lahayn u qaadaan. waxaa intaasi raaciyay tilmaan kasta oo aan hayno waa in ay diyaar u yihiin in Ukraine ay weeraraan oo ay galaan. waxa uuna yiri dareenkaygu waa in dhowrka maalmood ee soo socda ay taasi dhici doonto. hase yeeshee Biden ayaa weli aaminsan in la heli karo xal diblomaasiyadeed kaas oo yareyn kara walwalka Ruushka ee la xiriira gantaalada iyo tababarada militariga NATO ay ka wado bariga qaarada Yurub. xulafada galbeedka ayaa diiday dalabkii ugu weynaa ee Ruushka ee ahaa NATO ay meesha ka saarto suurtagalnimada in gaashaanbuurta NATO ay xubin ka noqoto dalka Ukraine iyo dalalka kale ee ka tirsan midowga Soviet. qodobkaasi dawada la xiriir akhbaraadkeena caalamka ayaan ku soo afmeerina warbixin dalka iyo dafaha caalamka inaga soo gaaray oo si toos ah uga socoteen telefishinka Karaamar xaruntiisa dhexe ee magaalada Ankara ee dalka Turkiga. aniga Jibril Cusmaan ayaa warka idin soo saaray, isla markaana halkaan idin kala socodsiinay tan iyo intaan warka xiga kulmi doona aniga iyo dhamaan bahda telefishinka oo isku duwan. waxaanu idin kaga tagaynaa waad ku mahadsantiin daawashada wararka iyo barnaamijyada aanu halkaan ku soo gudbina. kulanti dambe oo xiiso leh. nabadgelyo.